Soomaalida waqooyi waa Soomaalida kala duwan keebad adigu ugu jeceshay bismillaahir rahmaanir rahiim horta waxa weeyaan de magaca Soomaali la yiraahdo waa wadamo ayuu kala yahay laakiin luqadan baa lagu hadlaa waa sida Carabta la yiraahdo ay u kala tahay marka dawladdu misana marka shanta Soomaaliya way jirtay isticmaar baa googooyay xuduudaha la sameeyay kulli dad isku afal laakiin dhaqanadooduna kala duwan yihiin baynu haynaan Somaliland waxay sameysay wax la yiraahdo Soomaali jacayl bay sameysay waxay istiri marka cidii marka xorriyadda qaadatay inaga ugu horeynay shantii Soomaaliya Muqdisho marka aynu ku darsanno iyaduna inagu xigtay wixii ka dambeeyay Djibouti baa xornimo qaadatay iyadu wayna diiday sidoo oday horeba sheegayay oo marka hore halka aad kaga duubteen marka waxa weeyaan Soomaaliya waxa weeyaan inay sideeda kala ahaato ay ku qurux badnaatay Soomaalida kala duwan magaaladii hadii aad isdhaahdo tagba magaaladii ba tagi lahayd Somaliland baan ku noolaa qof Somaliland darabaan hayaa magaalada kale uma tagi lahayn Somaliland hadii daniga gasho wadan waa sida caalamka kale way la mid tahay laakiin anigu Somaliland darbaan ahay dhalinyaradii Somaliland darka ah ee aan ogeyn wixii dhacay horena dee anu kulama taliyeen waxa weeyaan maanta malaha hadii la yiraahdo war meen isku darsanaba afkaartiinu xabaarsan tahay mise sideennu kala joognaan dhalinyaradu marka waxaan oran lahaa dee ninkii aan ogeyn waxba abayaashii hooyaashii hooyooyinkooda iyo hawareysto dhibaato ayaa halka inaga kulantay aad u fool xun oo isirnacayba oo dila oo maxaan idhaahdayay maaliya adduunaan waxba noo ka reebin marka waxaan leenahay war dhalinyarada Soomaaliland manhajyada lagu darabaan waliba oran lahayn wixii dhacay in la baro marka waxaan leeyahay anigu Somaliland darbanahay iyadan ku kalsoonahay iyadaan joogay insha Allah dhulka kalena waa haday daniga qabato sida caalamka kale sidaan Mareykanka u tago ayaan u tagi karaa Soomaaliyana waan jeclahay inay nabad ka waarto oo Ilaahay uu ka dhigo dal kulan cusub muuqaal cusub iyo maalin cusub waxaanu maanta dadweynaha ku dhaqan magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer aanu weydiin doonaa ra'yigooda ku aadan say u arkaan waxa jirta ummad Soomaaliyeed oo inta badan jaarla ah Somaliland sida ay u arkaan ummadda Soomaaliyeed iyo jacayl inta leeg bay u qabaan wadamada kala duwan ee Soomaaliyeed su'aashaas ayaanu la dhex mari doonaa dadweynaha magaalada Burco su'aalahaasi maxay noqon doonaan jawaabaha soo baxaya maxay noqon doonaan aniga Cismaan Abubakar Cismaan baa la yiraahdaa Cismaanow su'aal baan ku weydiinaynaa maadaama tahay muwaadin reer Somaliland waxa jirta Soomaali kale oo inala dhalatay oo aynu isku luqadnahay isku diinnahay waxa kamid ah Soomaalida Koonfureed Soomaalida Itoobiya Soomaalidaas oo dhan baa kamid ah ka Somaliland ahaan Soomaalida kala duwan teebaas dhihi lahayd way ku jirtaa danta reer Somaliland Soomaalidaas kala duwan keebad adigu ugu jeceshay waxa horta jacaylku ha dambeeyay horaanu isu soo maray ilaa 60kii ilaa 50kii shan Soomaaliyeed baanu doonaynay haddaanu Somaliland nahay waanu ka soo quusannay waxaanu israacnay hargey baashan maxaa la yiraahdaa Muqdisho waanu israacnay Muqdisho waxay nagula kacantay dil iyo khiyaano iyo xumaan Djibouti baa naga xaragootay Djibouti yaa naga xaragootay annagoo Soomaali protector la yiraahdo Djibouti baa naga xaragootay waxay naga dhigtay Muqdisho waxay naga dhigtay dadaan jirin iyo dalaan jirin yaa naga dhigtay maanta Soomaaliba doonayna Somaliland mooyaane ma aaminsanin aanu Soomaali kale sakeeba taageero haysa Soomaalidaas horta aanu marka hore Somaliland bana mid labaad aanu Soomaalida dhan wada jecel maadaama wadada la dhashay wadad isku diinahay wadadan isku dhaqanay midba ma nabcaan horta marka wad kuligood wada jecel oo kaade Soomaalida kala duwan keebaad hadii asdhiina tagbaba keeba taglahay horta aanu dalbaan ku noolahay dalkaasna horta taageeraan jecelaha joogistiisa garanaysaa meel kale ma bixin mise uu Soomaalida dhamaantoodana wada jecelay way midba ma nabcaan karo dadkaygiida qof dadkiisa nacayna de waraabaha cidada ka cunaya Soomaalida kala duwan keebaad adigu taageertaa Soomaalida dhan horta waan wada taageeraa dhamaantood Soomaalida gaar ahaan waxaan taageeraa ummadda Somaliland cid kale hadii lagu daray Soomaalida Koonfureed in baan jeclaan lahaa Soomaali kale ma jeclaado Soomaalida Koonfureed waa dad markii horena dawlad wada ahayn ma jeclaan Muqdisho inaad hadda tiglaad inaad tagto waan jeclaan lahaa inaan Muqdisho qabto
muqdisho waa walaaladeenoo soomaali weeye waa soomaalida burca ku nool iyo soomaalida muqdisho ku nool waa soomaali soomaalina waa soomaali markaa soomaalida koonfureed iyo soomaalida dhulka kalena waa hadday dan iga qabato sida caalamka kale sidaan maraykanka u tago ayaanu tegi karaa soomaaliyana waan jeclahay inay nabadi ka waarto oo ilaahay uu ka dhigo dal xasiloon waxaan qadiyadahayn aad baan iyada qudheeda u jeclahay wadadii nala mida wadadii nala dhashay waa walaalaheen wanaagooda iyo sharaftooda baynu jecellahay insha allah innaguna sidaas la mida dad kala geeya kala dalla waynu nahay waan jeclahay inay nabadi ka waarto hase ahaatee waxa aanan kuwa kale uga saboorti karayey kuwa kale waxay jecel yihiin qarannimadeenna ayagu laakiin ku taagantay markaas saas ayaan ku leeyahay marka soomaalida faraha badan soomaalida Itoobiya leh soomaalida Djibouti leh soomaalida Kenya leh iyo soomaalida koonfureed wadankiiba ka cadus ahaan aad jeceshahay marna aad ka digto amaad niyo wallahi aan waxa jecelahay horta inaan marun ka digo soomaalida ma interes karayo badanaaba way wada haday dhacdo shanta soomaalidaas ee xamar muqdisho niyo saameyn ku yeelanaysaa way sabti xamar waa hooyadii Soomaaliya markaas Soomaalidan kale adiga jiraale wala gumeystaa ilaa soo ka madax banaanta waa Soomaali marka Djibouti oo kale inuu ma interes karayo tan kale Etoobiyaanka iyaguna wadada ku nool Kenyadu jinsiyada way necab yihiin baa lagu lahaa markaas la jiga Soomaaliya niyo Soomaaliya wax ka wanaagsan ma jiraan marka lahaan dan ahaan Soomaaliyan la eegayo in Soomaaliya laga digo aad airportka ka digto adan cabdi laakiin isma jiraan عاقل فارح حسين قامش بلا magacayga adeero عاقل فارح oo su'aal baan ku weydiinaa dadweynaha reer Burca weydiinay su'aashaas waxay tahay waxa jirta Soomaali kala duwan oo aan isku luqadnahay isku Soomaalinahay waxa kamid ah Soomaalida Itoobiya Djibouti Kenya iyo taa koonfureed Soomaalida kala duwan keeba taageerta ama se keeba jeceshay Soomaalida waxaan taageeraa horta waxaan taageeraa oo qura Somaliland baan taageeraa anigu Djibouti ma taageero Soomaali weyn ma taageero Kenya ma taageero Ethiopia ma taageero sababtan ku taageerayna wax weyn muwaadin baan anigu Somaliland baan ayaanahay calankayguna 1960kii buu xamar igaga dhacay meel baas oo qaar jiba haysaba la yaacin kaar ku dhacday maantana waan laay ilaa yoomil hada waan raadinayaa mana hayo laakiin say ilaahay nabadgeliyo intaas ay ugu filan dawlad Soomaalida Djibouti waxaan anigu fikir ahaan iyo siyaasi ahaan waxaan u qabaa waa fikirkaygii inay yihiin cadawga Somaliland ha waxay ku yihiin Ismaaciil Umar Geelle xamar buu dhisaa ciidamadu siiya safaaraduhu dhigtaa xamar buu tababarro u furay ee Djibouti baa tababarrada loogu furaa waa loo salaxaa farmaajo iyo dawladda Soomaaliyeed buu la shaqeeyaa Somaliland waxaan hagardaama iyo dhib ahayn Somaliland kuma qabto oo kuma hayo inanka yar xalay ta hadlayay Faysal Cali Waraabe waxaan jabayayna waan arkayaa isagoo Hargeysa gudaheeda jooga waxaan leeyahay haday dawladda Somaliland ay sharciga haday wax kaga qaban weydo oo sharcigu shaqayn waayo de waxa weeyaan wax si kale aan wax kaga qaban doonaa waanu arkaynay sidoo hadlayay iyo cayda foosha xun ee uu soo deynayay iyo sida in calawaa fikirka in Cali Waraabe ayaanu raacsanahay waanu ku raacsanahay ay Djibouti ka qabayna Cali Waraabe ayaanu ku raacsanahay haddaanu nahay shacbiga reer Somaliland Axmed Garaad su'aal baan ku weydiinaa dadweynaha reer Burca aan weydiinay maanta su'aashaas waxay tahay waxa jira Soomaali kale oo inala luqada inala diina waxa kamid ah Soomaalida koonfureed Soomaalida Djibouti Ethiopia Kenya Soomaalida kala duwan ka Axmed ahaan keebad adigu inta badan aad leedahay waa taageertaa ama se aad jacayl kugu jira Soomaalida kala duwan horta wad mahadsantiin dariiqun baad iga qabateen horta de shantii Soomaaliyeed baad ka hadlaysaa shantii Soomaaliyeed ka mid baynu nahay Somaliland waa ka mid Djibouti waan jecelahay koonfur waan jecelahay kilalka shanaad waan jecelahay NFD waan jecelahay nimanka koonfurta nimka xogaa isku hayna siyaasadda mooyee oo iyaguna aynu jecelahay inagu waliba wanaagooga iyagu laakiin cunahaynahay mooyee inta kale wax ma abgaraysa dhibaali ma jiraan hadiiba magaalooyinka kala duwan ee Soomaalida asdhihi lahayd ma dalxiis u taga ama tag magaalada tagi lahayd Djibouti ay loo jecelahay xaaskayga ka soo jeeda xaaskayga xaaskii ka sii horeeyay ka soo jeeda asxaabtayda ka soo jeeda anigu runtii horta boor baan ku dhashay Burca waan ku koray
booramaan ka soo jeedaa waana ka xumay maalin dhoweyd faysal cali waraabo madaxweynaha jabuuti dhaleecaynayay isagoo ah siyaasiga qura ee reer somalilan xasan sheekh la fadhiistay baalki muxuu ahaa ninkan iminka haysta maxaa la dhahdaa farmaajo siyaasiyiinta somalilan isagoo bareeray isagoo maandheed uga haysanin inuu toos isagu ugu tego haddana inuu ku caayo ismaaciil cumar geelle ayaa soomaaliya ah waxaan leeyahay sheem xishoo baan ku leeyahay faysal dadka reer somalilaane faysal taageeraya war cadaalad sameeya yaan leeyahay haddii soomaali weyn cid lagu haysto ama cid taageerta faysal baa ugu horreeya qofka ugu horreeya ah